mudanayaal iyo marwooyin martida sharafta ka soo qayb gashay xafladda waxaa xusid mudan ardayda maanta qalin jebisay ardayda kaalimaha ugu horeysa galay oo markii 8 semester la qaybiyay qiimeyn lagu sameeyay 8 semester ardayda kaalimaha ugu horeysa galay 40% wax ka badan waxay noqdeen gabdho inta kalena waa wiilal ardadaas markay dhamaysteen 4 sano ee jaamacadda ay dhiganayeen ayna qaateen dhammaan waxyaalaha requirementiga ee looga baahnaa golaha sare ee jaamacaddu kulankiisa ugu dambeeyay uu fariistay waxa uu qariray cadeeyna dhammaan ardadaas qalin jebisay inay mudan yihiin in la siiyo shahaadada jaamacadda ayna xaq u leeyihiin jaamacaddu dadka ay soo saartay bulshada ayay kaalin muuqato kaga jiraan waxaan rajaynaynaa inay sababtuna ay tahay manhajkii loo dhigayay iyo qaabkii loo barbaariyey iyo aqoontii loo huray inay tayadooda muujiyeen saasaan rajaynaynaa marka goob kasta oo tagto way joogaan hadday dawlad tahay iyo hadday tahay privatekaba waxaa ka mid a jaamacaddu guulaha ay gaadhay waxaan samaynay qismi research oo xoog badan oo ilaa hadda dadaalaya oo kulamo qabanaya oo beebaro soo saaray oo cilaaqaad sameeyey qismigaasi uu taabo qaaday jaamacaddu dhinaca kale ururo caalamiya bay ka mid noqotay jaamacado waaweyn bay cilaaqaad la samaysay arday badan bay scholarship u dirtay oo jaamacadaha dibadda ay ku soo diyaarinayaan ay u badan yihiin waddamada suudaan iyo maleesiya iyo turkiga ay jiraan arday waxbarasho u aaday inay jiraan jaanibkaasna horumar fiican bay ka gaadhay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray waxyaabo fara badan oo ka mid ah xayawaanaadka malaa'igta annaga laakiin wuxuu u karaameeyey waxyaabaha ugu weyn uu karaameeyey waxaa ka mid ah waa caqligana waxa uu xambaarsan yahay aqoon waa ogtihiin oo nabiyullaahi aadam malaa'igta iyo markii la abuuray wuxuu kaga qaaday waa aqoonta uu u leeyahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baray marka aqoonta innaga inaan sii qaadno jaamacaddan radsiina waxay ka shaqaynaysaa oo shaqadeedu tahay oo wax soo saarkeedu uu yahay waxa weeyaan inay soo saarto dad aqoon leh oo adduunkan wax ka bedela hogaamiya wax soo saara isbedel waaweynna ka sameeya dhinacyo badan marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan u dirayaa tahniyad iyo hambaliyo ardayda qalin jebiyey waxaan leeyahay ilaahay cilmigeena ha noqdo cilmi ilaahay barakeeyey ilaahay ha barakeeyo kuwii dalkiina iyo dadkiina anfacana ilaahay ka dhigo subxaanahu wa tacaala marka koowaad iyo marka labaad waxaa mahad ballaaran u jeedinaya allah subxaanahu wa tacaala oo noo suurto geliyey wakhtigaa dheer oo mataqaanaa taxanaha ah inaanu aqoontayada ama heerarka kala duwan ee aqoonta aan kusoo guda jirno annagoo ka soo bilownay ilaa aqoonta heerka dugsi hoose dhexe ilaa aanu ka soo horreynay heer aanu mataqaanaa dabka iyo aan kala aqoonayn intaas marxaladood aan ka soo gudubnay waxaa mahad labaad iyo mid saddexaad aan u soo gudbinayaa waalidkeena qiimaha badan hooyo iyo aabe oo runtii ah laba qof oo aan marnaba la-aantood dunidan insaan u nuuri lahayn hooyo iyo aabe kadib waxaan mahad ballaaran usoo jeedinayaa maamulka jaamacadda iyo macallimiinteena tayada leh oo mataqaanaa aqoonta iyo mataqaanaa waxtarka ardadooda ku saacidiyey oo mataqaanaa garab ku siiyey dhammaantood waxaan leenahay abaalka noo gasheen ma aha midaan gudi karno anoo matalaya walaalahayga qalinjabiyaasha iyo afkaygaba ku hadlaya waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin man laa nabiya bacda ugu horreyn ilaahay waa mahad leh allihii caafimaad cilmi iyo cuduud soo keen daray isla markaana suuro geliyey inuu isugu nimaadno kulamada noocan oo kale ah innagoo haysana caafimaadaan cilmi ku baranno iyo amni iyo ammaan intaa ka gadaal asalaamu calaykum dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay madaxda dowladda isimada bahda saxaafadda iyo qaybaha kala duwan ee shirkadaha anoo ku hadlaya afka ururka ardayda jaamacadda badda cas saaka waxaan hambalyo u dirayaa iyo bogaadin dhammaan 150 arday ee saaka qalin jebisay jaamacadda badda cas jaamacadda hoyga haldoorka iyo hoggaaminta saaka hadalka iyo kooban waxaan ku soo koobayaa laba shay mid waa duco midna waa dardaaran marka hore waxaan u duceynaynaa dhammaan qalin jebiyaasha in ilaahay ka yeelo himilada horumarka dalkani higsanayo kuwa kaalin weyn ka yeesha oo noqda muxuu ahay cudud in anfacda sidoo kale waxaan la dardaarmayaa dhammaan
waxaan leeyahay cilmiga aad barateen waa inaad ugu adeegtaan cududda dalkiina cilmiga aad barateen waa inaad ugu adeegtaan cududda ummaddu waxa u adeegaysaan baahi u qabta aqoontiina iyo xirfadiina waxaan kula dardaarmayaa qof walba hortiina yimaada inaydan hayb xisbi sooc iyo wax kale ugu adeegin ugu adeegtaan baadi sooca ugu sarreeya inuu yahay qof muwaadin Soomaaliyeed ummaddu waa ab iyo isri ummaddu oo taal qofnimo waa dhaaftay qabiilna waa dhaaftay saaka qaran baa lagu tababaray qarankaaga ku deeqo oo qofnimadaada iyo cilmigaaga kor u qaad cilmigu waxa ma taro haddaan aqal lagu darin noloshu waa halgan aqoontuna waa hub noloshu waa halgan aqoontuna waa hub saaka qalin baad barateen waxaan rajaynaynaa in ka sugaynaa qalin aan qabiil lahayn cilmi baad barateen waxaan ka sugaynaa cadaalad aan ciil lahayn sarreyn baad barateen waxaan ka sugaynaa sarreyn aan sijil lahayn intaan ku soo koobay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maansada waxaa la haasaan idin sheegay u hiila hankaaga waxay ku bilaabanaysaa maansada halmaan kala hiil walaalo weeyo aadaan kuu hibeeye lacag ma gadnayaa hiil walaalo weeyo aadaan kuu hibeeye qof walbo hayaana usaboo kuu hilaacdiyo hogashii xagaada ah hungo weeye taasi hogobay ku leedahay maahmaa horaa tidhi qofka hootaganay hoog mar hadduu hubsiin lii ugu hagay hawada sare hanka ruuxa himilada meesha uu higsanayaa hamigii ku xihan yahay heeryada ratiga saar hayin raraya weeye hoggaankana aduu qabo dadku yay ku heensayn ama haama kuu tumin ha ku hafan hawiya been ama heega aan jirin ha qabtirin ujeeddada kugu hagin humaaggii hore kugu soo dhacay wakhti aad haraadiyo maalmo aad habowdo kaa hor yimi hadduu jiray maalin baad helaysaaye ha hilmaamin hanashada heestiyo cayaaraha hambaliyada dadweynaha waxaan rabaa inaan laba qodob iraahdo madaxda gobolka iyo dowladda iyo muxuu ahaa degmadaba iyo muxuu ahaa qaybtan muxuu ahaa businesska iyo ardayda tan soo baxday waxay doonayaan nolol ah shaqo waxbay barteen ummadda inay wax qabtaan u shaqeeyaan fadlan isku day inaad fursada siisaan fursadahaas oo ah fursad shaqo sidoo kale fursad maalgelin isku daya fadlan inaad xoojisaan maalgelin dhulkii dalka dadka beec mushtariga businesska shirkadaha halka ka magacaaban qaarkood calaamad halka yaalana idinkan isku day inaad abuurtaan kana faa'iidaystaan xirfadaha aqoon-yahanada man jooga xagga sanacada xagga caafimaadka xagga businesska xagga wax kasta waxbarashadu ayaa ardayda qalin jabinaysa fadlan isku daya xoojiya idinkuna xoojiya fariin aan idin farayo weeye waxbarashada iyo maamulkeenu isma deeqaan xaqiiqiyan xataa shirkaduhu inama deeqaan maamulku inama deeqo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin sanadkii markay u yaraato 3,000 6,000 oo nin qof baa ka qalin jabisa jaamacadaha aye xaggee bay aadahayaan dalkeena uma dhamma laakiin maxaa la rabaa haddaynu isu tagno oo 20 isugu tagno waxbaad abuuri kadhaan sababto aqoontii baad leedihi xooggii baad haysaan maskaxdii baad haysaan aragtidii baad haysaan ha sugina qofku asagaa laga rabaa inama daaqa kursi meeshii wax ku jireen meesha wax ku jiraan oo wax laga qaban karo ina deeqdaana qofku inuu barto farsamada gacanta waaye meesha ina deeqda oo qofku u socon kara hadda hindiya leeno ka yimaada niman jaamiciin oo master ah oo hindi ah yaa guryaha rinjiyeeya waad aragteen waa master wuxuu rinjiyeeynayaa guryaha ay hadduu tiisi yarana waa u gudbahaya laakiin ma ahan inaynu ka faanno shaqadeena inaynu ka faanno shaqadeena inaan ka faanin shaqa ceeb ma leh shaxaad baa xuna shaqa ceeb ma leh shaxaad baa xuna shaqa ceeb ma leh shaxaad baa xuna shaqa ceeb ma leh ku fakar wiilasheenna yaacay oo bahalladu dhex ku cuneen oo xagga tegey 80% dawladda hoose qashinka laga xaaqo waynu ka faannaa soo maaha nin yeeli kar layna kuma arko meesha ugu fiican weeye raggeena xagga taga meesha helaan meesha ugu fiican jagada ugu sarreysa ninka helaa waa ninka noqda sabiili oo safiiqinka qaata oo dhulka xaaqa kaasaa ugu sarreeya kow kan ku xigaana waa kan musqulaha qoda oo bahasha xardhuuqda kaga qaada haye ma ogolin
lacagtiina ayaday ku jirtaa aynu aad isugu sheegno ragga meesha ka hadlay qaar ayaa waxay xuseen in ay businesska ama shirkadaha ganacsiga ka sugayaan in ardaydan ay markaasi fursado u abuuraan runtii annagu horay ayaan fursado ugu abuurnay waxaana shirkadda ka shaqeeya arday fara badan oo ka soo baxday jaamacadda badda cas oo aan ka tilmaami karo ama qaarkood hadda dhigtaan oo aan ka tilmaami karo guddoomiyaha guud ee ardada jaamacadda badda cas oo halkan hadda ka khudbeeyey wax yar ka hor oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda golis taasoo caddayn u ah in ardayga quality-ga fiican uu noo yahay annaga target isla markaana aanu ka qaadanayno guud ahaan ardayda ka soo baxda dalka waxaynu u baahannahay dhallinyarahan sare leh waxaad u tihidiin jaamacadda tan ambassadors waxaad u tihidiin jaamacadda arday ka baxday ma ahay arday u maqan oo madax iyo ganacsato iyo meel kastaba jaamacadda magaceeda iyo sharafkeeda iyo qiimkeeda sigaysaan waxaa la idinka filanayaa marka in aad magaca jaamacadda kor u qaadaan oo bulshada wax ka beddeshaan qaybaheeda kala duwan waxaan idin leeyahay waxa ugu fiican oo qofku uu qabto waxa weeyaan waxa uu jecel yahay inuu qabto markay ka hadlayaan waxa aad jeceshahay markaa qabanaysid ama passionate aad ka tahay ma caajisaysid marka fakir wixii adigu aad jeceshahay qaybta doonta ha noqotay bulshada u qabo dalkan iyo dadkan oo u maqan tihiin jaamacadda badda casna waa uga mahadcelinaya martisoorkan iyo sharaftan iyo xafladan qiimaha badan guul iyo gobonnimo aan idiin rajaynaya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa jaamacadda Reersi oo runtii caan ku ah Boosaaso waynu isnaqaanaa waxaa dhigta ardayda committed-ka ah ardayda ay ka go'an tahay anigu waalidiinta ay ardadoodu dhigtaan baan ka mid ahay jaamacadda waxaa dhigta ardada ay ka go'an tahay inay wax bartaan ardaygii rabaa inuu leexleexdo inuu meelaha ka warwareego waxbarashada aan jeclayn ma soo aado Reersi University arrinta arrin caan ah weeye aad iyo aadna waa idinku mahadcelinayaa professorada iyo dadka dhammaan waxa wax u baranaysaan waddanka waa inay wax bedel ku samaysaan asaas ka soo bilowdaan beerihii qodadaan oo beer samaysaan dhaqaale samaysaan aqoon samaysaan aqoontiinu ay ka muuqato waddankii idinkaa u badan idinkaana wax u bartay wadamada tan loo tahriibayo ama dadku aadaya arday idinka idin la mid ah bedeshay oo halkaa gaarsiisay marka waxa la idinka rabaa aqoontiinu inay wax bedesho meeshii hore odayaashii hore awoowayaal iyo adeerayaal iyo aabayaal ay ku dhaqmi jireen inaan taagnaano maaha inaan wax bedelka waddanka ka muuqdo jaamacadu waxa ka muuqda waddanka dhinac walba uga muuqataan kelmadda kale waxaan ku leeyahay xildhibaanow wasiirow muxuu ahaayey madaxda saroy isinow warnabadoonow haddii hormuud lagaa dhigtay maaha inaad ka bilowdo cunugaaga maaha inaad ka bilowdo qaraabadaada maaha inaad ka bilowdo walaalkaa waa inaad cadaaladda u daysaa way jidha arrintaas nin odaya maalin dhow ii warramaya nin odaya oo aan magaciisa sheegayn ayaa maalin dhow wuxuu yidhi warbal warran baan ku uri 4 cunug baa kuu qalin jibisay kuu shaqeeyaan war iska daa wax kale wuxuu yidhi nabadoonnadii iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii baa caqabad nagu noqdayoo haddaanu iyagii wax ka dhignay dadkoodii iyo faamilkoodii baa wasaaradihii nooga horeeya iyo madaxtooyadii haddee bilaahi caleek dadku hadda waxbay barteen waxbaa la eegayaa ma aha in adiga maaragta haddii xildhibaan lagaa dhigay ama nabadoon lagaa dhigay ama isim lagaa dhigay ama muxuu ahaayey madax sare lagaa dhigay ma aha inaad gurigaaga adeega ka bilowdo xaashaa lilah waa lagu jeedaa haddaad moodo in lagu arkayn kaa xishoo dalka dadka wax bartay ha la siiyo muhiimadda muxuu ahaayey cadaaladdu ha shaqayso hambalyo marka ugu horeysa inaad bachelor maanta aad qaadateen oo golaha jaamacaddu uu okay yiri laakiin waxbarashadu ma dhammaato oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inta inagu aan maqalay oo ilaahay inoo sheegay nabi maxamed baa ugu cilmi badan waqul rabbi zidni cilman baa amar waxaa amar lagu siiyey inuu yidhaahdo maxay rabbi zidni cilman wax la yaab la waaye haddii aad marka u malayso inay waxbarashadii kaa dhammaatay waa khasaare marka waxaa laydinka rabaa qodobka koowaad waxbarashadaasi inay sii socoto
ood ku ducaysataan rabbi zidnii cilman dibalo ma master dictora ka sii sare waxaasoo dhan waa taas waa qodobka koowaad qodobka labaad dhalinyarada marka waa rajadanada waa mustaqbalkanaga aakhiriya adduunba fiiri waxaa jira durriya saalixa ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ومحي القبوسي ما لغوه راح يسوي القبوسي وكأدوية يا كآخرة الله بدروه ماها ملك اليوم واجعلنا للمتقين إماما جنريشك أن تربين إنه ونسى إنه واكه وجنريشك أنتو الدلالو دد وناكسن مدح النقو كرواي واجعلنا للمتقين إماما وحال جودا بلشين تجورجور لو صار دسي كور لجيء توصي إن مدح كان بتاع لجاربا وزير كان مركا يمدحوينها قبل كان يكفدرال كي أنت محل جربا حال جربا بلشت توصل الدسان مركا بلشت توصل دسان بلشت توصل مدح كان نقول كتعليق هديك لو حد مدح كان نقول إيسا كوبين كوشيجايا كلالوش قاطة كتوجة كخيان لوء كاستعمار كوكانة كإذا مسوه جامية كدولة أجنبية أي حكومان أو قان لهاي بعض يا أذو حكومة يسا مركا محاكم كنت وزير وحبا مركا عرفت ساعة هاي وحمي حكومتي ساد دراد القرآن كياب وله وجعلنا للمتقين إماما أفيرسو ودد لو سود دالي وصلك لقى صوب باللابي وتوصي يروح توصل مدح النقطة بلشوي كتسمي ساسي كوهاجين dhalinyaradu boqolkii toddobaatan iyo shan markay sheegatay boqolkii toddobaatan iyo shanta ugu yaraan iyaga boqolkiiba toddobaatan iyo shan ama 80 wax ma baran banaankii ka yihiin waxbarashadii iyo cilmiga iyo aqoontii kuwa ay sugayaan oo inay soo geliyaan xaydaamka aad ku jirtaan oo cilmiga iyo aqoonta iyo iftiinka idinka shidan oo qalbigiina ka shidana kuwa inay soo geliyaan la rabaa idinka weeyii marka sababaha aad ku soo gelinaysaan waa inaad halabuur samaysaan oo qaabkay u soo geli lahaayeen iyo fursadihii ay heli lahaayeen idinku aad abuurtaan weeye marka maadaama aad qoladii fursadda ayaan haysan oo aad idinku haysaan waxa weeyaan inay idin bannaan tahay fursad aad ku fikirtaan oo wax ku abuurtaan oo hore ugu socotaan oo dalkan ugu faa'iideysaan dadkan ugu faa'iideysaan maadaama aad marti u ahaydeen nin hore u faa'iiday kuwii hore marti u ahaayeen nin hore u faa'iideeyay wuxuu abuuray dawladda dabiicadeedii baa waxay ahayd in shaqo loo helo qofka jaamacadaha iyo waxyaalaha ka soo baxa halku dhigeedii baa ahaa laakiin hadda waxa weeyaan adinka inaad shaqo abuurtaan in halku dhigu booskii dawladda aad gashaan oo halku dhigiinu ahaado dadka idinka dambeeya say shaqo iyo aqoon u heli lahaayeen waxaan oo rabaa intaanan waaladayda iyo inaan ku dhawaaqo maanta oo bishu tahay 19kii bishii 12 2019 inay qalin jabiyeen arday oo dhamaysatay digrii koowaad oo jaamacaddii 4 sano oo ka qalin jabisay RSU maanta laga bilaabo waxay ka mid yihiin aqoon-yahanka Puntland Soomaaliya runtii waa farxad weyn maanta inay intaas oo aqoon-yahan inoo qalin jabinayaan waxaa farxad kale oo weyn ah jaamacadda quruxda badan nidaamsan aan ku shirayno hadafkaad ku dhididaa dhibta iyo daruufaha noloshaada dhaafsiin weligaa ha dhayilgelin cilmikaad ku dhaqantiyo caqli dhowrtanaantee dunidan dhibaatadu dhinacyada ka buuxaan adigoon dhantaalayn ruuxa dhiire kugu yidhi dhabarkana u raarici wax kastoo dhibaata runtii macallin weeyaan ka dheerow dhibaatada iyo dhaqanka qaybtan dhayaheennu qaban karin anigoon dhantaalayn dhigashada daruustiyo cilmi macallin dhiirani ii dhigay ayaan hore soo inaan dhankaygii juhdi iyo dhaqaaliyo ku bixiyo dhammay noqon macallinkii la dhowraa
dhakhtar caalim oo jira iyo hoggaan la dheefsado dadka horey u dhigayee runtii macallin dhiirani dhimashuu u gelayaa badbaadada dhallaankiyo inuu dhowro qarankee dhagar iyo waxaan jirin ha u dhigin macallinka